micna iyo mug weyn xisbi keenayo micna iyo mug weyn xisbi keenayo mayracay bulshada aan miciisane maamulkan wadani loo wada mushxaraad aan miciisane maamulkan wadani loo wada mushxaraad micna iyo mug weyn xisbi keenayo micna iyo mug weyn xisbi keenayo mayracay bulshada aan miciisane maamulkan wadani loo wada mushxaraad aan miciisane maamulkan wadani loo wada mushxaraad السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض داوديال كسر دواد برنامج أنه كل يدونه حزب معارض كودني يصير وجد بدري معلومتي أولها أولها مدح تويدا تلك جمهورية الصومال لان deegaanada gobolka saaxil iyo magaalada Berbera sidii arkayeen taageerayaal aad u tiro badan oo ku leebisan calanka astaanta ah ee xisbiga mucaaradka wadani oo soo maray jidadka waaweyn ayaa isugu yimid goob fagaara isla markaana waxa kala hadlay madaxda sarsare ee xisbiga mucaaradka wadani heer gobol heer degmo ilaa heer qaran waxayna u dhacday sida tan waxaan ku casuumaynaa inay doonta ka harin wax yar baa buushii ka hadhay codkeenna weeye waxaan leenahay duuqaad ha la ogaado sabir ha la ogaado gargaara ha la ogaado waxtar ha la ogaado isxaabun ha la ogaado iskaxaqabasho ha la ogaado ha loo adkaysto maalinta ha loo adkaysto intaynu tarabuunka joogno madaxda inoo timi ee heer qaran ee hargeysa ka timi iyo gudida kaabeynka intaba waan soo dhaweynayna waxaan leenahay ku soo dhaweeda gobolka saaxib waxaa qaban kartaan qofka gaariya odhan jiray waxay odhan jirtay golaa lagu dheelayaa shacbiguu ka yahay maxkamad guusha iyagaa qira waa caddayseen waa ismuujiseen berberi inay isbeddel u baahan tahay waxaan leeyahay saaxil ha noolaato kuwa dembiga ka galay ha dhacaan waxaa inoo ballana sidaa maanta isu muujiseen inaad fartiina ku ciilbaxdaan inaad sidaa inoogu wadaan in isbeddel doonka xusbiga wadani aad sidaa u taageertaan waa mustaqbalkiinni gobolka saaxil 6 saacadood ayaan shalay bilaabiye ahaa 6 saacadood anigoo hudheel ku jira ayaan 6 saacadood shalay bilaabiye ahaa oo bilaawaysa ahaa dhibaatada haysata gobolka saaxil waa taa reer saaxilow meelay khayriyadii meelay waar khayriyadii meelay waxa laale wax kasta markii la cunay khayriyadina waa taa saaka waxaynu khudbada ku qabanaynaa saldhigii dhexe waa saldhigii dhexe weyne ee mustaqbalka dhow cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro waxaan idinku bushaaraynayaa magaaladii hargeysa way isqabsatay burco way isqabsatay ceergaabo way isqabsatay boorama way isqabsatay gabiilay way isqabsatay berberana waa arkaysaan waa mahadsantihiin reer berbera waxaynu caade iyo dhaqan u lahayn aan isdhegaysanno dad ilbaxa baynu ahayn dad xadaarad labaynu ahayn waar meeday khayriyaddii aynu ka hadli jirray meeday khayriyaddii meeday xabaalihii baa laga xishoon waayoo la qodayaa miyaynu adkaysannaa war miyaynu adkaysannaa maya 23 cisho inooga hadhay isbeddelka gacanteennaynu ku keenaynaa 5 sannadood baa layna camaaluqaa maalin baa farteennu talisaa maanta yaynaan la seegin waddani yaynaan la seegin waddani halkan waxa jooga wafdi culus cabdiqaadir jirde iyo cabdilaahi cirro wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha ku-meegaadhka ah xisbiga waddani labaduba fariinta idin sidaan way idiin sheegayaan reer berberow innagu odhan mayno dekad baa la cunay halkanaa la cunay cabaadi mayno caban mayno
maanta waa maalintii farta maxaad tidhaahdeen wadani allahu akbar allahu akbar allahu akbar assalaamu calaykum waraxmatullahi maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa kale inoo jooga wasiirkii qiimaha badnaa ee arrimaha gudaha cabdilaahi ciro midix baynu taagannay midh baan idin leenay reer berbera innagu waynu isgaranaynaa maalintan idinka tegayna waan garanayaa maantana waan garanayaa 20 cisho yaa inoo hadhay sabir badan baa leediin rag adkaystamaatiin dadku wuu adkaystaa in yar bay naga hadhay waxaan leenahay fartiinnaasi sida maanta u soo baxdeen maalinta dambana sidaa u soo baxa soocaynkaa iskuma ogin aad baynu isugu iman doonnaa waddani ma dhihin gabayga dhegaysta haddaba badbaadada waddaniga shacbigu baahi wow qabayee badbaadada waddaniga shacbigu baahi wow qabayee cidku boorrisuunbuulaa lagama baydheenee bisinkiiyo qur-aankaba intii baratay loo yeedhiyee barafasoor iyo siyaasiyan waxgarad baa isbiirsaday ee beenna inaanan kuu sheegahayn wuxuu bayaankeedaa 100 kun oo ruuxaya soo bannaan baxayee booram iyo hargaysiyo burciyo ceeri iyo sool baa bartanaynu joogniyo berbera saaxil badhaheedaa bartii aad istaagtaba waddani waa babanayaa ee ha u baq intaa waxaan ku darayaa reer berbera waa magaalo runtii isku filan oo qaranka ku filan maanta laakiinse halkay joogto waynu arkaynaa in badan baynu dhaliil soo sheegnay dhibaatada berbera ka jirta in badan baynu soo sheegnay maanta ku noqnoqon mayno maanta waa go'aankii kama dambaysta ahaa waxaan doonaynaa maanta ciddii waxay noo qaban lahayd somalilan oo dhan ciddii qarankan u hiilin layd maanta inaynu farta ugu hiilinno allah yarxamee maxamed xaaji ibraahim cigaal waynu arkaynay inuu qaranka u hiilinaayo waxaynu ugu hiilinay inaynu hub ka dhigno waxaynu ugu hiilinay inaynu dabagalno isaguna wuu inoo hiiliyo qaran buu inoo dhistay maanta kii beddeli lahaa baynu haynaa cabdiraxmaan baynu ugu hiilinaynaa fartaynu maanta ugu hiilinaynaa farta ballankeennu waa farta waxaanu leenahay kulmiye beddeluu allahu akbar waa mahadsantiin dumiyaha qaran dadka qaybshaha qabiilka dugsaday doorkan maanta yuu idin duufsanne ka digtoonow annaga ka qabsannay inuu hargaysa ka soo bilaabo saaxilna ku dambeeyo aad iyo aad buu idiin salaamayey waxa weeye kulmiye waa doorateen waa u hiiliseen waa u dadaasheen wuxuu idinka ballan qaaday inuu baddana macaanayn doono muxuu ku xigsiiyey berbera wuu liqay berbera hal waraaba dilay oo haddana weli xalaaleeyey ayay ka dhigeen berbera waynu soo celinaynaa saaxil waynu u hiilinaynaa waxay ahaan jirta baynu ka dhigaynaa waxaa laydinka doonayaa in idinkuna isu hiilisaan hiishada fartiinna ku xilbaxa saaxil sideedii bay ku soo noqonaysaa saaxil waa laambadda somalilan waa laambaddii shidnay laambaddii way bakhtiyeen waannu nuurinaynaa waannu soo celinaynaa idinkana waxaa laydinka rabaa inaad ka qaadataan kaalintiinna oo no hor gashaan oo noo hiilisaan oo idinku nahagtaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mid waxaystayo maatidan dayacan mid midayn kariyo moogtahay dadyo mawjadaan cankira xisbi muuqda maaran kara xisbi muuqda oo maaran kara maanta waa wadani
daawadayaal muuqaalkan aa arkaysaan waa degmada Dawo oo ay booqdeen wafdi ka tirsan xisbiga mucaaradka Wadani oo uu horkacayo Cabdulle Maxamed Arab Cabdulle Sandere waxaana loogu soo dhaweeyay sidii ugu diiranayd iyadoo arkaysay dadweynaha ku dhaqan degmadaasi oo sita calamada astaanta waa xisbiga isla markaana muujinaya baahida ay u qabaan isbedelka ay ka filayaan xisbiga mucaaradka Wadani waxaydan inoogu jirtaa nabad ana koo helna oo guryahayaga nabad ku joogno caafimaad ayaanu kuu rajaynaynaa daacad baanu nahay waxaa jira dad inta marka marafaqaarka qaataan yidhaahda waxaanu nahay reer hebel war anaku reer hebel ma lihin qabiil kasta ayaanu leenahay beelayguma taqaanaan xaqaaiq baan idiin sheegaya lixdan jir baan ahay maanta ubadkaa dusa ku sidaan mustaqbalkooda ka hadlaya maanta anigu kursina u dudi maayo kursi jacayley ma hayo xaqsa waxa iigu leedin inaan idiin sheega saxanku wuxuu yahay ummaddu waxay go'aansatay xisbiga Wadani yaan laydin waalin hadda arki lahaydeen Berbera markii la oray xabaaliba wallahi la soo baxay awaaweeshii ku aslaayeen waa ayaan darada jirta ayay ka mid tahay ciilka Berbera wala kuma dhicin Soomaaliland oo dhan ka dhacay caawa TV-yada daawada umada lacag lama siinin laakiin se waxa la isku raacay in lagu badbaado lagu nabad galo waxayna helay waxaan naxariis lahayn oo tudaala lahayn oo ilaahay ka baqanaynin oo daalimiina helay oo 8 sanadood umada du taagnaa waxaan dilaadii sida calanka waa la isku raacay Wadani inanka wada waa in ilaahay yaqaana miyir kala waa isku raacay degan umada hogaami kara waxaan dilaahay codkiina saa ku ilbahaysaan bariqaado maydo reer soo wurgama san Wadani soo markaa isku ogaano assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh inuu barnaamijka waxa la socodsiinayay anigoo Cabdirashiid Mubarak Cabdirashiid Suul daawadayaasheena dib ugu kulmi doono barnaamij sidan oo kale waxaan idinkaga tagayaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh